asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan ramadaan mubaarak sidoo kaleeto kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub subarstaaradda caanka ee kariina kaburan heesta kadib markii lagu daro liiska naadirka ah ee taariikhaan atirishooyinka fanka hindiya kuwooda ugu awooda badnaay ma aha filimka kuru oo keliya oo dabcan maalinkiis waa si adag ku furmay laakiin xidigtan 22 sano ama 24 sano ugu dambeys fanka hindiya maqaamka ay ku lahayd guulaha ay gaartay iyo muddada dheer ee ku jirta awgeed box office hindiya maanta waxay kusoo lifaaqeen warbixinta filim kuru ay kaga hadlayeen in kariina kabuur ay tilaabsatay filimkan 9 karoor iyo bar ayuu ku bilowday lacagta nadiifka maalinkiis koowaad keliya tiyaatarada waaweyn hindiya muus ka gadmin xitaa gudaha hindiya magaalooyinka fogfog iyo tiyaatarada single screens ka gadmin xitaa waxaa rajastan iyo central india meelahaas 35% ganacsigan filimka fighter ayuu ka hooseeyey halka waxaa leeyahay dabcan rocky oo raniki brimki kahani oo kalena uu ka saameyn badnaay jimcadiisii kuwaad ganacsiga uu sameeyey sidoo kale darhi uttar pradesh iyo east punjabna si aan caadi ahayn ayuu filimkan kaga gadmay inkastoo diljod dasanji uu faktarkiisa jiri kara maadaama superstar punjabi uu yahay east punjab wuxuu ku yeelan karaa door dhinaca kaletana waxaa numbariska ama dumarka isku soo baxeen filimkan daawadana innaba caadi ma ahan xitaa waxaa leeyahay kalaashka uu la galay godzilla vs king kong waxuma aysan u dhibin maadaama filimka hollywoodka godzilla vs king kong dhankaas iyo koonfur hindiya ganacsiyan uu ku wanaagsanay shabakada box office hindiya waxay leeyihin saaxiibada qiimaha badan filimkan ganacsiga uu sameeyey iyo bandhiga uu la imaado waxay ka dhigan tahay in kariina kabuur halkii ugu sarreysay ay dabcan joogto sidoo kaletana waxay dhaheen beebo awoodoodii lama geli karo sababta waxay qayb ka noqonaysaa taariikh ahaan atirishooyinka fanka hindiya kuwooda ugu awooda badan ebel la arkay waxaa hindiya la dhahaa kuwo waxaa jiraan qaanad gaar ku jiran la gaari karin sida waxaa lasoo qaataa markii la fiiriyo kale mumtaaz iyo xidigta caanka hema malina saridevi iyo madhuri dixi afartaas atirisho waxay ku jiraan qaanad gaara waxaana ugu wacan fankoodii iyo halka ugu sarreeyay gaareen awooddii ay lahayn guulaha ay gaareen ugu dambeyntiina hadda box office hindi waxay leeyihin kariina kabuur qaanadaasaan ku daraynaa waxaana ugu wacan saaxiibada qiimaha badan filimada sida u gadayso haddii ay keligeed hogaamiye ka tahay sida verdi widin iyo heroin iyo mashruucanba hadda inta ay keeneen dhinaca kaletana box office hindi waxay leedahay kariina kabuur hadda jaaniska heshay waa jaanis dahabi ah waxaa soo raaci karta keliya ay ka dhawaajiyeen gabadha lagu magacaabo aliyabad waxayna dhaheen aliyabad iyo kariina kabuur 20 sano ugu dambeyso waa labada atirisho oo big stars oo maqaamka ugu sarreeya gaareen aliyabadna haddii ay guulaheeda sii joogtayso darajada kariina ee gaartay ayay gaari doontaa marka vijay tamalan ka tagay vijay tamala mumtaaz iyo hema malina saridevi madhuri ahayn hadda waxaa soo raacday kariina kabuur waa 6 mega star ee dabcan atirishooyinka taariikhda fanka hindi soo mareen aliyabadna haystaa guul jaanis haddii ay guulaheeda joogtayso sida box office hindi ay leedahay dhinaca kale shabakadan credit ama mudnaan waxay xitaa dabcan taabo iyo kritisanon ayagana kaalintooda qaateen laakiin waxay dhahday guul kasta oo la gaaro waxaa sabab u ah kariina kabuur maadaama ay ka saameyn badan tahay haddaba aan soo qaadano 10 filim ee atirishooyin hogaamiyaalka yihiin maalinkood lacagaha ugu badan soo xareen meeshan awood waxaa ku haystaan kariina iyo aliyabad verdi widin wuxuu soo xareeyay 10.42 karoor kariina kabuura hogaamiye ka ahayd waxaa ku xigay gangabaadi kathawaadi oo asagana 9.62 karoor keena maalinkiis koowaad aliyabad hogaamiye ka ahayd kuru 9 karoor barow keena qiyaas ahaan kariina kabuura hogaamiye ka ah deer zindagi aliyabad sameys afraad ku jira 8.62 karoor keenay tanno welis manuritanis wuxuu keenay 8.61 karoor kan gana runada sameys kaalin shanaad ku jira mary com wuxuu soo xareeyay 8.32 karoor baryaanka jabra jones sameysay toddobaad waxaa ku jiro ragini ms2 oo sameysay leon oo 7.93 karoor keenay halka sideedaad uu ku jira manikarnika the queen of jansi kan gana sameysay 7.66 karoor keenay jismi 2 wuxuu soo xareeyay 7.46 karoor sana leona waday raazina aliyabad sameysay 7.63 karoor keena maalinkiis koowaad waa 10 filim atirishooyin hogaamiyaalka yihiin ee maalinkood ganacsi ugu badan sameeyeen meeshaan kariina aliyabad awooddaas ku haystaan marka kariina kabuur ha loo hambaliyay maadaama darajo horle ee gaartay atirishooyinkii awoodda badnaay ayay dabcan ku qaanad noqotay iyo sidoo kaleeta filimkan sida u gaday hadalhaynta filimka kuru intaas kuma ekeeye wuxuu noqday taariikhda filimkii ugu horreeyay oo dumar hogaamiyaalka ama atirishooyin ee maalinkood dabcan 20 karoor ka tilaaba ganacsigiisa guud world war gross highest opening day grosser for any female lead hindi film ever ayaa lagu soo dulqora posterkan oo ay ka dhigan tahay kariina kabuur mar kaleeta taariikh kale oo caalami ah sameysay gudaha hindi kaliya ma ahan dibad iyo dalna ayada hogaaminaysa xidigtan filimkeedana 970,000 oo doolarka mareykanka ayuu ku bilowday day 1 dibad iyo dal waxaa ka badan oo kaliya filimka fighter ayaa maalinkood ka badnaa waa mashruuca labaad ee lacagta ugu badan sanadkan soo xareeyay terebatome esa uljajiya iyo shaydaan xitaa waxaa ka ganacsi badan suuqyada caalamka marka la joogo day 1 filimka kuru saa darteed marka mashruucan waxay u badan tahay inuu maalinkiisa labaad saddexaad gedmi doono weekend qurux badan qaadan doono marka commentigiina ka dhiibta beebo iyo maqaamka ay gaartay
dhinaca kaletana maanta ciwaanada waxaana haysto wiilka lagu magacaabo Sidhu oo weel talented asigana ninkan waa shaqay saaxiibayaal lama xaqiiri karo kadib markii filimkiisii Tilo isku warmaanikiisa kuwaad ganacsi adag uu sameeyay 23 karoor ka tilaabo World War Gross sheerka laga helna uu gaaray ilaa 14 karoor waxaa la leeyahay dabcan atoorayaasha Tier 2 ayuu cagta u saaraa waxaa la soo qaatay sanadkan 2024 iyo maalin koowaad sheerka filimada dabcan laga helo ugu badan dhulweynaha Telugu marka la joogo Andhra Pradesh iyo Telangana waxaa ka badan oo kaliya Guntur Karam oo maalinkiisa koowaad laga helay 38.88 karoor Tilo isku warna dheewan waxaa laga helay Telugu marka la joogo 9.25 karoor Hanuman waxaa laga helay 7.97 karoor Naasami Ranga waxaa laga helay 4.30 karoor Eagle waxaa laga helay 3.93 karoor Gami waxaa laga helay maalinkiisa koowaad 2.96 karoor Sandeep 2.98 karoor marka wuu tilaabsaday Sidhu marba haddii Mahesh Babu haddii meel iska dhigay sanadkan 2024 filimka maalin koowaad Telugu saamiga ugu badan laga helay asiga sameeyay xogtan shabakad T2B way sii balaarisay maalin koowaad Andhra Pradesh iyo Telangana iyo waxaa la soo qaatay atoorayaasha levelka dhexe Tier 2 iyo saamiga ugu badan filimada laga helay waxaa ka badan oo kaliya Daasara oo 14 karoor laga helay oo Natural Star Nani sameeyay Kushin waxaa laga helay 9.87 karoor Liger waxaa laga helay 9.57 karoor Tilo isku warna markii la joogo Telugu waxaa laga helay maalinkiisa waa 9.25 karoor Sakanda waxaa laga helay maalinkiisa waa 8.62 karoor Smart Shankar 7.73 karoor Aqil 7.60 karoor MCA filimka lagu magacaabo Nani sameeyay waxaa laga helay 7.57 karoor tan waxay muujinaysaa marka sida Sidhu uu tilaabsaday Tier 2 isla markii uu safka hore ka soo galay wiilkan dhalinyarada ah oo ilaa hadda laba filim sameeyay labada film jilinka uu la imaaday si aan caadi ahayn ayaa lagu amaanay dhinaca kale maanta ciwaanada waxaa haysta actorka lagu magacaabo Nathan oo sanad gurigiisa ay tahay ayadoo xilli dabcan la dhahay Happy Birthday haddana waxaa la soo bandhigay posterka filimkiisa la wada sugaa Robin Hood oo uu ku xarakeen doono wad ee poster inaba caadi ma posterkan laga soo bandhigay ayadoo actorkan waxaa rakeenayo sidoo kale tan dabcan markii la fiirsho telephone dhagta ku haysto oo kiyaalo wato hubkiisa u dhameystiray marka waxaa la waa film inaba caadi ku xarakeenayo Mythri movie makerisa filimka maalgelinayso Nathan waa filimkiisa ugu soo horeeyay marka la daawan doono agent ayuu ku matalaa sirdoon filimkan waxaa lagu magacaabo Robin Hood laakiin wali xilliga rasmiga la daawan doono lama sheegin waxaa shaac laga qaado oo kaliya in mashruucan uu diyaarsan yahay posterkan laga soo bandhigay maalin dhaweed waxaa laga soo bandhigay teaser inaba caadiyan marka maanta waa maalinta Nathan oo dabcan ciwaanada qayb ayuu ka yahay sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka markii aan fiirno saaxiibayaal actorka lagu magacaabo Fishal iyo sidoo kale filimkiisa xiga la wada sugay dabiiqada Abriil soo bixi doono ee lagu magacaabo Rathnam ayaa laga soo bandhigay albumka labaad ee heeska ah ama hees u gaaray waxaa la wada gabadha lagu magacaabo Priya Bhavani Shankar filimkan waa filim kale oo dabcan doonaya Fishal inuu guuliis ku sii wato 26 bisha Abriil ayuu soo baxaa Hari ayaa directorka Fishalna jawi degan ku jira filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa dabcan Mark Anthony kaasoo 100 karoor gaaro blockbuster ahay mashruucan heeska laga soo bandhigay muusikada waxaa garaacay DV Sri Barsada garaacayo sidoo kale tan waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan filimkan Z Studio wax ka maalgelinayso waqtiga lagu talagalay 26 Abriil soo bixi doona albumka laga soo bandhigay heeska koowaadna qof kasta ka helay markii laga soo tago Fishal iyo Priya Bhavani Shankarna filimkan waxaa ku jira Samata Karni Yogi Babu iyo Gautam Menon iyo shakhsiyaad kale ka soo muuqanaya filimka lagu magacaabo Rathnam oo Fishal u soo bixi doona bisha dambe waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka markii aan fiirnaa ciyaarta qiimaha badan filimka Family Star oo jimcadan soo baxay Vijay Deverakonda hogaamiye ka yahay Munal Thakur la wada family lagu talagalay qoysaska mashruucan waxaa la hadalhayntiisa aad iyo aad u sareysa waxaa la horgeeyay guddiga filimada Faafreban waxaa la siiyay shahaadadii lagu daawan lahay sidoo kale waxaa shaac laga qaaday waqti aan soconaya 160 daqiiqo ama 2 saac 40 daqiiqo ayuu soconaa Vijay Deverakonda wuxuu ku matalaa wajiyo kala duwan Family Star Dil Rajo wuxuu ka yahay producer Tamil iyo Hindi iyo Telugu waa lagu daawan doonaa ayadoo filimkan waxaa leeyahay dabcan tiyaatarada si aan caadi ahayn looga soo dhaweyn doono wuxuuna ku soo beegmi doonaa xilli toddobaadka Ciid al-Fidriga la guda geli doono marka 5 Abriil filimka la daawanayo Family Star 2 saac 40 daqiiqo ayuu soconaa sida la soo daabacayo waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee saaxiibada markii aan eegno suldaanka Mahesh Babu asigana waxaa la dalxiis ka bixilaya dhankaas Switzerland uu aaday xilli uu nasiin u aaday Mahesh Babu iyo dalxiis maxaa kala haysto filimkiisa ugu dambeeyay Guntur Karam uu ahay underperformer noqday halkii laga filay uu gaari waayay mashruuciisa xiga waa dabcan filimkiisa 29aad hogaamiye uu ka yahay ninka lagu magacaabo Esra Jamoli directorka laakiin xilliga la bilaabay lama sheegin saadartay marka suldaanka waxaa laga qaaday sawiro xilli dhankaas dabcan Switzerland uu joogo buuraha Alpska ayuu iska joogay oo dalxiis ku qaadana marka ninka haduu Janis hela shaqada intuu qaban lahaa wuxuu ka jecel yahay inuu iska dalxiiso sida haatan la soo daabacayo sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qaybka ciyaar ee filimka Shaydaan Ajay Devgan hogaamiye ka jimcadiisii afraad soo gudagalay oo haddana filimada Crew iyo Godzilla si adag u galmayaan
saasay tahana filimkan wuu isceliye ganacsigiisa hal karoor ma uusan ka hoosmarin filimkan horarka cabsida badan oo Joyatiki Armadafan la sameeyeen sida lasoo daabacayna saaxiibada qiimaha badan filimkan wuxuu keenay maalinkiisa dabcan waxaa waaye 22aad uu guda galay toddobaadkiisii afraad haddana wuxuu soo xaray 1.25 karoor waxay ka dhigan tahay 135 karoor bar ayuu lacagta nadiifka filimkan maraya dhinaca kale tan suuqyada caalamka wuxuu ka soo xaray 32 karoor bar gudaha Hindiya canshuurta koorna wuxuu keenay 160 karoor ganacsigiisa guud Worldwide Gross hadda wuxuu maraa 193 karoor shaydaan targetka uu leeyahay 200 karoor inuu gaaro ganacsigiisa guud dibad iyo dal wuuna gaari doonaa maadaama toddobaadkiisa afraad isagoo guda galay filimkan uu isceliye sida lasoo daabacayo dhinaca kalena saaxiibayaal waxaana ka tegi karin wiilka lagu magacaabo Sidhu uu tilaabsaday sababtoo filimkiisii Tulu Square dhankaasi North America wuxuu kaga bilaabay si aan caadi ahayn $500,000 Mareykanka ayuu ka tilaabay jimcadii iyo khamiistii ganinka dambe markii la isugu daro weekendig waxay u badantay $2 milyan Mareykanka inuu gaari doono Tulu Square waxaa la leeyahay sidoo kale tan hadda filimka lagu magacaabo Family Star Mareykanka asigana Premiere loo sameyn doonaa laakiin farqiga dhaca wuxuu yahay waxaan caadi ahayn filimka dabcan Tulu Square Sidhu hogaamiyay tigidhka waxaa lagu iibsanaa Mareykanka $18 halka Family Star oo Vijay Deverakonda hogaamiyay kayana $15 ayaa lagu iibsanaa waxaa la weli filimkan xitaa Dil Rajo iskale laakiin hadal hayntii xiisaha waxaa sareeyay Tulu Square oo waxaa la hadda just 2 days 1 milyan ku gaara saddexda maalmood ugu horeysana 2 milyan ku gaara u badan tahay marka waa wax la yaab leh Tulu Square $18 lagu iibsanaa qiimaha barayska tigidhka Family Star asagana haatan advance booking la bilaabo soo bixi doona jimcadana Vijay Deverakonda ka level sare Sidhu waxaa la hadda Sidhu waa dabcan Mareykan ku xoog badan maadaama filimkii $15 Mareykanka lagu iibsanaa Vijay Deverakonda ninkan $18 Mareykanka lagu iibsanay ugu dambeyntii yaana ka tagin ninkii Nathan ugu soo laabanaya filim kale dabcan uu soo wada maanta poster laga soo bandhigay ani waxaan la yaabay Nathan iyo Gobijanda si kasta follow u keenay haddana filim ma waayaan waxaan sheegay Robin Hood inuu diyaar u yahay maantana midkan kale laga soo bandhigay baskan oo dabcan dusha ka saaran yahay warankiisan uu wato actorkan waxaa la filimkiisa ugu dambeeyay Extraordinary ma uu ka fashilmay laakiin filimka xiga hadda uu soo waxa loo bixiyay Thamudu sidoo kale waxaa directorka ninka lagu magacaabo Finnu Sriram oo ku cambahay filimkii Fakil Saab waa anada posterka laga soo bandhigay Nathan oo waxaa leeyahay dabcan filimkan ku matalaya shakhsi kale oo awood badan actorkana Taluga waxaa muuqata markaa asigoo falabkiisa wada haddana mashaariic Robin Hood iyo Thamalu film soo wada marka Nathan ciwaanada maanta asiga haysta maadaama sanad guuradiisa ay tahay actorkan wuxuu u dabaaldegay sanad guuradiisa dabcan wuxuu dhashay 30 Maaj sanadii 1983 dhashay waa 41 jir atoraasha levelka dhexe kamid kuwa ugu mashquulka badan marka bilaasha Gobijanda ku heesan falab markuu tahay filmo kala duwan saxanay Nathan bahatan laba mashruuc ku dhawaaqay dhalashadiisa ay tahay oo uu dabcan ninkan shaqadiisa ka wato guud ahaan barnaamijkan intaas uu nooga egyahay markale Ramadaan Mubaarak xasuusin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh